Assalaamu calaykum. Dhalinyaro dhegeysta muhiimadda dhalinyarada ee dalka. Dhalinyaradu waa jiilka soo koraya ee bulsho kasta, waana hindhaha iyo mustaqbalka mujtamac walba. Dhalinyaradu waxay muhiim u yihiin waddanka oo idil, waana sababta bulshooyinka caalamku ay door muhiim ah ugu ciyaaraan kobcinta jiilalka soo koraya, iyaga oo laga dhisayo dhinac walba sida caafimaadka, waxbarashada, madadaalada iyo maaweelinta iyo kobcinta maskaxdooda, iyaga oo sidoo kale loo tababarayo qof kasta iyo waxa uu ku fiican yahay. Dhalinyaradu waxay ka qayb qaadataa dhisidda iyo horumarka dal kasta oo adduunka dushiisa saaran. Waddan kastana wuxuu ka horumarsan yahay waddan kale intuu ka dhalinyaro fiican yahay ama ka dhalinyaro horumarsan yahay. Dhalinyaradu waxay rabtaa waxbarasho, shaqo, horumar iyo caafimaad iyo aragti dheer oo siyaasadeed in loo sameeyo. Midaasna waxaa kaliya oo qaban kara waa dawlad daacad ah oo ka timi dadka una adeegaysa dadkeeda. Dhalinyarada Soomaaliyeed, dhalinyaradena sharafta leh, waxay xambaarsan yihiin muhiimadda aan soo sheegay oo dhalinyaro walba oo adduunka ku nool xambaarsan tahay. Haddana waxay u baahan yihiin wax kasta oo dhalinyaro u baahan tahay sida waxbarasho, shaqo, nolol, sharaf, siyaasad, ciyaaro, caafimaad iyo horumar. Nasiib daro midna maysan helin, cidna uma maqna. Inkastoo oo heleen beddelkeeda waxay dhaxleen kuwo kale sida tahriib, burcadbadeed, waxbarasho la'aan, shaqo la'aan, mustaqbal iyo nolol xumo, caafimaad iyo ciyaar la'aan iyo horumar xumo. Cidna uma maqna, ceelna uma qodna. Dhalinyaradeennu waxay muhiim u yihiin dalkeena dhisidiisa iyo ka saarida dhibka hareeyay qarankeeni. Waxay xaq u leeyihiin ka qayb ahaanshaha iyo dib u dhiska dalkeena hooyo, walow aan cidna midaas kala tashan. Dhalinyaradu waxay leeyihiin maskax caafimaad qabta oon daalin, waxay soo kordhin karaan wax badan oo aysan qaban karin dadka waaweyn. Waxay leeyihiin wadaniyad dabiici ah, mana ka suurowdo wax badan oo ka suurtooba dadka waaweyn. Intooda yaro wax baratay waxay leeyihiin aqoon iyo firfircooni muhiim u ah maamulidda iyo horumarinta dawlad. Dhalinyaradu waxay u nugul yihiin dhib badan, mana jirto cid ugu garowda, waxaana loo isticmaalaa waxaysan geyin beddelkii la dhisi lahaa loona horumarin lahaa habkay mudnaayeen. Ugu dambayn, aan ogaano muhiimadda iyo muqadasnimada dhalinyaradu inoo leedahay. Ogsoon aynu la garab istaagno heel iyo hoo, hana loo sameeyo siyaasad ku dhisan aragti dheer. Midna waxaan leeyahay dhalinyaradu meel kastoo ay joogto, waxaynu dalka leenahay Soomaaliya, dadna inagaa u ah, waana meesha keliya ee aynu adduunka dushiisa ka leenahay. Waxaana ka daalay silic iyo saxriir, mana jirto cid kaloo u maqani. Waxayna ku waajibay u shaqaynteeda, daafaceeda, ilaalinteeda iyo xuraynteeda. Ogo wiilow ama gabarey, Soomaaliya adaa leh, laakiin waa laga qaaday, mana kugu jirto gacan. Kenyaanka iyo Etoobiyaanka dalkooda ma ku ogola, kaagana waxay ku joogaan bilaa fiiso, bilaa amar. Adna ma weydiisid waxay ku weydiiyaan markaa waddankooda rabtid inaad gasho. Maysan doqonnimo weyn ahayn. Dhalinyarow, aan ilowno anaa reer hebel ah iyo annagu waxaas ma helin. Aan ogaano waxaynu nahay cid keliya ee haddii dalku inoo hagaago jaaniska ugu fiican leh. Waxaan idinka codsan isku duubni, midow, iscafin, isjeclaysi, wadannimo iyo aragti midaysan oo saliim ah. Kadib dalkeena waynu dhisan karnaa. Ogaada waxaa jira dhalinyaro aan haysan jaaniska aynu haysano, sida khayraadka badda iyo dhulkeena yaal. Ma jirto dhaqan iyo diin ina kala hadaynaysa ama luuqad aynan isku fahmi waayi karayno. Mana jirto sabab aanu isu qabqabsano. Keliya waxaa noo tala ah sideen u dhisnaa dalkeena hooyo, miyaanan ahayn dalkaada hooyo. Dhalinyaro dhegeysta, dalka dib u jilee, iska daa waxyaabaha kale, iska daa anaa soo jilee dhulkaaga hooyo. Wax walbada arki. Waxaad nagala socoteen Rajada iyo Maanta. Haddaad ku cusub tahay channelka, subscribe dheh, sidoo kale gambaleelka rugmo. Haddaad ka heshay videoga like saar, sidoo kale faafi oo asxaabta la wadaag si aan u helno ugu yaraan hal qof oo gadaal soo fiiriyo si uu waddanka nooga hagaago. mahadsanid.